تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku dhex jirnay walaalayaal barnaamijkeenii qisooyinka ambiyada. waxaa xalqadan aynu ka hadli doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala nabiyullaahi luut calayhi asalaatu wassalaam. nabiyullaahi luut wuxuu ahaa nebi ka mida ambiyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu doortay. waxaanu ahaa rasuul ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo diray oo dad gaala ah loo soo diray. qisadiisu qur-aanka way ku soo laba goor noqotay oo suwar fara badan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kaga sheekeeyey. taqriiban ilaa 9 suuradood ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qisada nabiyullaahi luut uu ku soo qaatay calayhi asalaatu wassalaam. nabiyullaahi luut waxay isku waqti ahaayeen nebigii aynu ka soo sheekeynay qisooyinkiisii oo ahaa nabiyullaahi ibraahim calayhi asalaatu wassalaam. waanu rumeeyey oo nebi luut wuu rumaysnaa nabiyullaahi ibraahim sidii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala faaamana lahu luuta وقال إني مهاجر إلى ربي. intii aanu haajirinba nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam waynu kasoo sheekeynay qisadii markii aabihii iyo tolkiisiiba waxa weeyaan uu ka haajiray uu ka dheeraaday gaalnimada ay sameynayaan iyo kufriga ay ku dhex jiraan awgeed. waqtigaa ayuu rumeeyey nebi luut nebi ibraahim uu rumeeyey calayhima asalaatu wassalaam. nabiyullaahi luut calayhi salaam isagoo rumaysan nebi ibraahim calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diray dad xun ayaa ilaahay u diray oo ilaahay ku sifeeyey ilaa qowmi saw-in dad waxa weeyaan xumaan falaya oo xumaan waxa weeye sameynaya sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waluutan aataynaahu xukman wacilman wanajaynaahu min alqaryati alatii kaanat tacmalu alkhabaa'ith. ilahay wuxuu waanu ka badbaadinay qaryadii kooxdii waxa weeyaan sameynaysay xumaanta iyo falalka waxa weeyaan aadka u xunxun. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inay yihiin innahum kaanuu qowma saw-in faasiqiin. dad xunxun bay ahaayeen baa ilahay yihi qowmu saw, dad waxa weeyaan xunxun oo falal waliba xunxun sameynaya. falalka ay samayn jireen nabiyullaahi luut calayhi salaam ayaa u sheegay waxau tilmaamay لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. marka afcaal aad iyo aad u xunxun oo ay ka mid tahay ama ay ugu weyn tahay in raggoodu ay isu tagaan oo ay wax iska doonaan oo shahwadii ilaahay subxaana wa tacaala uu faray dariiqo xalaala in loo guto oo qofkii wax weeye dariiqo xalaala oo wax weeyaan yacni qofkii lamaanihiisii uu baadho oo ah wax weeyaan tusaale haddii nin uu yahay gabadh hadday gabadh tahayna nin oo dariiqo xalaala uu ku guursado oo sida xaajadiisii iyo shahwadiisii uu ku guto labada qof ay ku gutaan tiiba wax weeyaan ay dooneen waddo xaaraana inay u maraan oo ah raggoodu in iyagu ay isu tagaan. riwaayadka qaarkood ee aathaarta qaar waxa ku soo rartay xataa dumarkooduna inay isu tagi jireen. marka dhaqankaas iyaga ayaa ugu horreeyey oo ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay caadadaas maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin. cid uga horreysay inaanay jirin caadadaas. markii ugu horreysay ee banu aadamku ay sameeyaan ficil noocaasa inay ahayd qowmu luut in waxa weeyaan falka ay falaan. nabiyullaahi luut calayhi salaam dacwadii ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu ugu baaqay oo tawxiidkii iyo ucbudullah maa lakum min ilaahin hayruhu ilaahay tabaaraka wa tacaala inay caabudaan oo xaggiisa ay usoo noqdaan. kadibna wuxuu kala hadlay caadaadkan xunxuna ay sameynayaan oo weliba si wax weeyaan caddaan ah oo aan qarsooni lahayn ayay isugu tegi jireen raggooda iyo dumarkooduba. marka runtii waa fal aad iyo aad u foolxun oo aad waxa weeyaan u xun. kiiba waxa weeyaan uga digay nabiyullaahi luut calayhi asalaatu wassalaam. waxay markaa noqotay tulkii markaa inay diidaan. bal ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. jawaabtoodu waxay noqotay inay yidhahdaan luut inaga fogeeya inaga saara nabi luut. waayo sabab maxaa dhacay muxuu falay dembigiis waa maxay
إنهم أناس يتطهرون برالك أو فرسده سبحان الله يعني waxa lagu tacninaya oo lagu duraya oo leeyahay u fogeeyay nabiyullaahi luut alayhi salaam waa inuu istaahirinayo unaasu yatataharu wanin doonay inuu istaahiriyo oo taharadu maceeba qofku inuu istaahiro oo is ilaaliyo oo is dhowro oo xumaanta ka dhowrnaado oo wixii ilaahay tabaaraka tacaala u diiday xaaraanta wax weeye ka aha uu ka dheeraado ma shay wax weeyaan xunba mise waa shay qofku wax weeyaan lagu dhaleeceeyo nabiyullaahi luut alayhi salaatu wassalaam waxa uu doonay in wax weeyaan marka uu habaaro oo markii wax weeyaan uu ogaaday in wax weeyaan cid kale oo wax weeyaan yani iyaga kamid oo rumeynaysa inaanay jirin in yar baa rumeeyay oo waxa la yiraahdo yani tolkiisa oo kaliya bal waxa la yiraahdo gurigiisa oo kaliya isaga iyo hablihiisa ayuun baa wax weey rumeeyay xataa gabadhiisi wax weeyaan way xumaatay oo gabadh wax weeyaan xun ay noqotay oo wax weey wax raacday gaaladii xumaanteeduna waxay ahayd xumaan ku saabsan xagga diinta laakiin dhaqanka aynu hadda sheegaynay ee ku saabsanaa in dumarkoodu ay isu tagaan iyadu marnaba dhaqankaas may samayn bal ahlucilmigu waxay tilmaameen gabadh nebi weligeed inaanay waxaweye zina iyo xumaan inaanay waxaweyaan aanay ku dhicin xumaanta ay xumaatay gabadha waxaweya nebi luut iyo nebi nuuxba labadooda dumara inay xumaadaan waxay ahayd xumaan ku saabsan xagga diinta oo gaalnimo waxaweyaan inay yani ay gaalnimo ku sugnaadaan oo waxaweye gaaladii ay raacaan laakiin xaggii firaashkii iyo waxaweyaan yani zinadii waxyaalaha inay ku dhacaan marnaba taasi ma dhicin nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luut calayhima assalaam labadooda dumar xumaantooda waxay ku saabsanayd xagga diinta وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما labadoodii nabi bay khiyaameeyeen oo aswaajtoodii bay khiyaameen oo nabi nuuxna gabadhiisii way khiyaamaysay nabi luutna gabadhiisii way khiyaamaysay laakiin khiyaamadaasi saan tilmaamay ma aha khiyaano ku saabsan xagga gogosha iyo firaashka iyo wax xaaraan inay ku dhacday sidii zina iyo wixii lamida laakiin waa khiyaano ku saabsan xaggii diinta oo in wax weeyaan gaalnimo oo in wax weeyaan ay qarsanayeen oo munaafiqnimo oo kale ay ahaayeen oo si munaafiqnimo kale ay ula dhaqmayeen nabiyullaahi luut calayhi assalaam wuxuu habaaray dadkiibuu habaaray in ilaahay tabaaraka watacaala uu halaago oo mar haddii waxaweye cid kale oo iyaga ka mid oo hanuunaysa aanay jirin inuu habaaro ayuu waxaweyaan uu doonay markaasaa waxaweeyaan ilaahay subxaana watacaala ducadiisii uu ajiibay ducada ajiibitaanka ilaahay subxaana watacaala uu ka ajiibay waxa ay noqotay in ilaahay malaa'ig uu soo diro malaa'ig ayaa ilaahay subxaana watacaala uu soo diray malaa'igtaas waxay ku soo horeysay markii hore nabiyullaahi ibraahim calayhi assalaatu wassalaam oo adeer u ah nabiyullaahi luut calayhi assalaam nebi ibraahim bay kusoo horeysay malaa'igtii markaasaa waxa weeyaan waxay ugu imaadeen iyagoo sawir bashar oo kale leh bani aadam sawirkiis iyagoo leh markaasaa waxa weeyaan ay u soo galeen markaasaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam uu waxa weeyaan markaasay salaameen id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala salaamun markaasuu salaantii waxa weeyaan uu ka radiyey oo ku yiri wacalaykum assalaam markaasaa waxa weeyaan uu ku yiri isu kay sheega يعني آيات qaarkood waxa ku sugan inuu markiiba uu cararay dabadeedna waxa weeyaan uu markiiba waxa weeyaan uu soo qalay dibi taasna waa waxyaalaha yani makaarim al-akhlaaq ama dhaqamada wanaagsan ee nabiyullaahi ibraahim laga dhaxlay ay kamid tahay oo waxa la yiraahdaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa awwalu man dayafa ad-duyuuf cidii ugu horeysay martisoor ku dhaqaaqda ayuu ahaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam dhaqan aad u wanaagsan diinteenna waxa weeyaan yani ay fartay man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu markiiba dibi ayuu waxa weeyaan uu soo qalay waliba uu si xaniid oo kale waxa weeyaan uu soo shiilay markaasuu u keenay markaasaa waxa weeyaan yani uu doonay inuu karaameeyo oo uu sharfo markaasay gacmaha ka laabteen markaasuu ka baqayaa oo uu waxa weeyaan fa awjasa fi nafsi yani markaasaa wuxuu dareemayaa baqdin oo waxa weeyaan yani inuu ka baqay oo dadka maxay yihiin dad aanad garanaynin wajiyadu ay ku cusub yihiin qurxa badan magaalada aan hore u joogi jirin socdaal oo kale u eeg cuntadaad u keentay wax weeye kugu diiday nooca ma baqdin bay leedahay ambiyaduna wax weeye waa nafli ambiyaduna waa nafli oo sida wax weeye inuu abuuranahay oo kaliyuna ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala sida qisada nabi muuse calayhi salaatu wasalaam aynu ku faahfaahin doono baqdinta iyo waxyaalaha wax weeye ambiyada ka soo martay marka يعني نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركي ومركا وحو دريمي تدكال إنيهين مركا صوحو تلمامي قال قوم منكرون قال سلام قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون وحتيهن تد وحويان آن لقرنين بل إسوكي شيء مركا سي تلمامين إنيهين الرسول حق إلهي تبارك وتعالى كيم أو إلهي تبارك وتعالى وصادري مركا سي ورطو إساقي أيو بشاريين وبشارة أيو سيدين أيو تلمامين مركا سوحي أيو بشاريين
إسحاق إن الله تبارك وتعالى أصين دونه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب runtii arrin aad iyo aad ugu culus bay noqotay marnaba wuxuu meesha ka filanayay ma ahayn nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam tafaasiisha insha allah xalqada dambe aynu ku qaadan doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala wasala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان